maanta kadib haddaa ka hadasho madaxan kaa toogana waa ogahay inuu sii toogan karin tabarteedana uusan lahayn laakiin hadalkaas waa ka dhacay ayaa mas-uul ka mid a mas-uuliyiinta dalkan howlahaasna qaabilsan uu taleefon ii soo diray asagoo sheegaya ugu yidhi al-shabaab miyaa tahay maxaa uga hadashaa dadkan dhimashadooda iyo dhaawacooda iyo dhibka jira leeyahay ninkan waa qurbajooga waa cabsanaya laakiin nin cabsada oo la cabsi geli kara inaan anina meesha ka qiraya maanta toddobaatanaad farqadiisa koowaad ee dastuurka federaalka iyo xeer hoosaadka qodobka 9aad farqadiisa koowaad intuba waxay leeyihiin golaha dhibaato kama soo gaari karto xildhibaanka fikirka uu ka soo jeediyey golaha shacabka hortiisa wax dhibaato oo ka soo gaari kara ma jiro sidaa la socotaan 5 maalin ka hor meeshan waxaan ka soo jeediyey oon kaga hadlay dhibaato ka dhacday magaalada muqdisho oo ahayd in xabsigii dhexe la galay dad lagu laayay dadna aan loo soo xirin dadna aan xilka laga qaadin lagana hadlin waxaa ku xigtay 2 maalin gudahood in la galay kafeegii ku yaalay Top Cafe labaanka ku wareerin xildhibaan suuqan ku toosinaya xildhibaanka ku wareerin arintan codsi soo jeesay baa jirtay ma idin sheegin daraada dhibaato la soo gudboonaday qodob ajintaha ka bedelana cabasha meesha ku gudbiyay buu yiri ajintii ma waxa ka hadlay dhibaatasi ku dhacday waa saa u la socdaa bas okay gabayso walaalkay waxaa jirtay in la galay Top Cafe oo dhalinyaro bunani fiirsanaysay iska damaashaadaysay la galay dad lagu laayay lagu dhibaateeyay ilaa haddana aan mas'uuliyad la qaadanin oo cid loo soo xiray xilkii laga qaaday cid la dhibaateeysan jirin hawshiina ay si caadi ah isaga socoto markii aan ka hadlay oo meeshaan ka baxay ayaa mas-uul ka mid a mas-uuliyiinta dalkan howlahaasna qaabilsan uu taleefon ii soo diray asagoo sheegaya ugu yidhi al-shabaab miyaa tahay maxaa uga hadashaa dadkan dhimashadooda iyo dhaawacooda iyo dhibka jira waxaan ku yidhi al-shabaab maahi laakiin waxaan u danqanayaa dadkayga mas-uuliyadda iga saaran waana matalaadii la ii soo doortay inaan ka hadlo arrintaas waxaa ku xigtay hadalkii ku xigay inuu ahaa maanta kadib haddaa ka hadasho madaxan kaa toogana waa ogahay inuu sii toogan karin tabarteedana uusan lahayn laakiin hadalkaas waa ka dhacay waana yimid marka waxaan rabaa maalin kale uga hadli doonaa sida guddoomiyaha uu sheegay maya ukaadi waa arrin qodobaysan oo dastuuri aan rabaa inaad hor keeno kadibna aad shaqadiina qabsataan idinka waa soo diyaarinayaa isniinta kama dambayn doonta haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan rabaa inaad horta taas ayadaa aad ogaataan waa warbixin hadda ka horna 275 xubnood oo baarlamaan ka mid ah waa ayuu ku soo diray whatsappka aad wadaagtaan kulli taasaan uga baxayaa anigana kulley waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay ninkan waa qurbajooga waa cabsanaya laakiin nin cabsada oo la cabsi geli kara inaan anina meesha ka qiraya maanta